أقسمت على التحرير وجهاد بني الخنزير، وطني في نبض دمائي وله عهد التطهير. أقسمت على التحرير وجهاد بني الخنزير، وطني في نبض دمائي وله عهد التطهير. الله أكبر الله أكبر، الله 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 أكبر. أرض فلسطين يا وردة في بستان الإسلام، طمع العدو واحتلك وبنى فيك الأحلام. أرض فلسطين يا وردة في بستان الإسلام، طمع العدو واحتلك وبنى فيك الأحلام. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ثم ما بعد، waxaan marka hore u dardaarmayaa walaalaha guud ahaan allah subxaanahu wa tacaala cabsidiisa oo shay walba oo adduunkan guudkiisa aasaas waa. ilaahay wuxuu leeyahy waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah huma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun. waxaad ka baqdaan baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala maalin laydiin celinaya alle subxaanahu wa tacaala, naf walbana alle maxkamadiisa caadilka ah loo oofin doono wixii ay kasbatay ee camal ah. allah wuxuu ihi waman yattaqi llaaha yajcal lahu min amrihi yusraa. ruuxii alla ka baqa subxaanahu wa tacaala arrintiisu u fududeeya. waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhraja. ruuxii alla ka baqa subxaanahu wa tacaala dhibaatada meel uu kaga baxo ayaa alle subxaanahu wa tacaala u sameeyaa. mowduuceenu waxa weeye al-ibtilaa'u waalmixan fii xayaati almu'min, jirabaadda iyo imtixaanka nolosha ruuxa mu'minka ah. nolosha ruuxa mu'minka ay maanta uu nool yahay, rag iyo dumar kuu doono ha ahaadee, waxaa ku hareeraysan imtixaan. waayo ma jirto dheef adduunka meel taalla oo aan dhibi ku hareeraysnayn. imtixaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada mu'miniinta uu imtixaamayana waxay ku xidhan tahay qof walba heerka diintiisa iyo iimaankiisa uu joogo ayaa la imtixaamaa. astaanta iyo calaamadda looga jeedana waxa weeye waa in la hubiyo iimaankiisa inuu ka run sheegayo iyo inuu ka been sheegayo. imtixaanku waa sunan kowniyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada iyo ciddii jidkooda raacday uu kula dhaqmo. waxaa ilaah leeyahy subxaanahu wa tacaala sunnata allaahi fi aladiina khalow min qablu walan tajida lisunnati illaahi tabdiila. middaasi waa sunnadii, waa dariiqii allah subxaanahu wa tacaala uu jideeyey ee uu kula dhaqmayey kuwii hore ee tegay ee nebiyada ka mid ahaa. walan tajida lisunnati illaahi tabdiila. sunanta ilaahay subxaanahu wa tacaala khalaa'iqda uu kula mucaamaloodo kula dhaqmana isma beddesho. waxaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam tusaale inagu siinayaa bada'a alislaamu qariiba wasayacuudu qariiba faduuba lilghurabaa. fariinta iyo dhambaalka xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka keenay bulshadii uu dhex yaallayna markaa ay wada gaalo ahaayeen, wuxuu ku noqon doonaa baa nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi, qariibnimuu ku noqon doonaa. laanta janno waxay u sugnaatay ruuxa islaamnimadiisa iyo diintiisa lagu qariibsanayo ee ku dhaqmaya, ku adkaysanayo cisi iyo sharaf markaa ka sii qaaday. riwaayada dabaraani, xadiiska imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya. riwaayada dabaraani waxay faa'iideynaysaa oo diinta allah subxaanahu wa tacaala ku dhaqmaya, ilaalinaya alle subxaanahu wa tacaala sharcigiisa fii unaasin suu'in kasiir, kuwaasoo ay ku dhex jiraan dad xumaato fara badan samaynaya, ayay dadkaa wanaagsanay ku dhex jiraan. man yacsiihim akharu miman yudiicuhum, dadka caasinaya
inta caasinaysa ayaa waxay ka fara badan tahay inta adeecayso amarkooda qaadanaysa. imtixaanka waxa ilaahay nebiyada ayuu ka bilaabay oo wuxuu yidhi wakadalika jacalnaa likulli nebiyin caduwan shayaadiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli quruura walow shaaa rabuka maa facaluuhu fadarhum wamaa yaftaruun walitasqaa ilayhi af'idatu aladiina laa yu'minuuna bialaakhira waliyardowhu waliyaqtarifuu maa hum muqtarifuun. waxaa lagu yidhi subxaana wa tacaala sidaasoo kaleanu waxaanu ugu waxyoonnay saanu nebi maxamed oo adiga kuugu waxyoonnay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. nebi walba waxaanu u yeelnay mid cadow u ah oo ka soo horjeeda shayaadiin baanu u yeelnay dacwadiisa iyo risaaladiisa iyo xaqa cadow u ah oo ka hor imanaysa. shayaadiintaasi waxay u qaybsamaan laba qaybood, waa jin iyo insi. jinka iyo insigaasoo yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli quruura, barhkood barhka kale uu u waxyoonayo xiyay oo been ah ayuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala. markaasaa ilaahi wuxuu yidhi walow shaaa rabbuka, haddii rabbigaa uu doono maa facaluuhu maanay sameeyeen ee fadarhum wamaa yaftaruun. allah baa subxaanahu wa tacaala doonay in la fitneeyo oo la imtixaamo ee ka tag iyaga iyo waxay been abuuranayaan. dadka been abuurka wada ariciya dadka baadilka ku soconaya, waxaa warkooda maqla dadkaan xaqu qancin, waxaa warkooda maqla qalbigooda kuwan diintu aanay qoynin, waxaa warkooda maqla kuwa hanuunka iyo xaqu aanay anficin. walitasqaa ilayhi af'idatu aladiina laa yu'minuuna bialaakhira waliyardowhu waliyaqtarifuu maa hum muqtarifuun. waxaa u iishaa qalbiyadu xaggooda ay u iilataa kuwii qalbiyadooda alle iyo maalinka dambe aan rumaynaynin. yacnii alle wuxuu leehy subxaana wa tacaala kuwa ha raaligeliyeen, ha dhumbadeen waxa ay dhumbanayaan oo ha dhex galeen dunuubta ay samaynayaan. waxaa nebigeennu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu tilmaamay xadiiska tirmidi, ibnu cadiyi fi lkaamil, ibnu badda fi libaana, anas ibnu maalik laga warinayo ya'tii cala annaas, dadka waxaa soo mari doona buu yidhi samaanun assaabiru fiihi, ilaalinta uu diinta alle subxaana wa tacaala ilaalinayo, yeedhmada uu dadka diinta ugu yeedhaya daaci rabbi subxaana wa tacaala uu yahay. wakhti ruuxaa diintiisa haystaa uu la mid yahay kalqaabidi cala aljamri, sidii ruux dhimbiil daba gacanta ku haya ayuu la mid yahay, ayaa nebigeennu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. dhimbiil daba ruuxu gacanta kuma hayn karo oo wuu ku gubanayaa. waxaa looga jeedaa oo nebigu sala allahu caleyh wasalam uu uga jeedaa dhibaatooyinka ku xeeran iyo imtixaanka iyo fitnada ku hareeraysan ruuxa diintiisa ku adkaysanaya wakhtigaa fitnooyinku ay badan yihiin. wuxuu la mid yahay baa nebigeennu yidhi sala allahu caleyh wasalam ruux dhimbiil daba gacanta ku haya ayuu la mid yahay. ajar fara badanna wuu u yabohay ruuxaas. ibnu nasr wuxuu fii sunna ku warinayaa dabaraanina fi lkabiir, nebigeennu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu yidhi inna min waraa'ikum ayaama asabri lilmutamasiki fiihinna yowmaidin bima antum calayhi ajru 50 minkum. qaaluu yaa nebiy allah awa minhum qaala bal minkum. wuxuu nebigu yidhi gadaashiinna waxaa ahaaday maalmahaasoo loo yaqaano baa nebigu yidhi maalmihii sabirka. ruuxa maalinkaa diintiisa haystaa wuxuu la mid yahay waxa idinku aad ku sugan tihiin ee xaqa ee diina ruuxii haystaa wuxuu la mid yahay oo uu helayaa ajru 50 minkum, 50 idinka mida ajarka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka helayaan. saxaabadu ridwaanullaahi calayhim way la yaabeen, waxay yidhaahdeen yaa nebiy allah awa minhum, rasuulka ilaahay oo 50kaasi ma yagay ka mid yihiin mise annagay naga mid yihiin ayay yidhaahdeen. qaala wuxuu yidhi bal minkum idinka mid yihiin. imtixaanaadka iyo ibtilaagu wuxuu ka yimaadaa jawaanib badan. waxaa ka mid a suwarulibtilaa walimtixaan. markaynu tilmaanno ummadda muslimiinta ah waxaa lagu sallidayaa cadowgeeda oo isu soo baahaysanaya.
waxaa nabigeenu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiiska abu daa'uud rawayaani fii musnadih ibnu casaakir fii taariikhi dimashq yuushiku alumamu an tadaaca calaykum alumam kamaa tadaacat alakalatu ilaa qascatiha. waxaa dhow baa nebigu yidhi oo ay u dhowdahay ummaduhu inay isugu kiin habarwacdaan oo gaaladu isugu kiin yeedhaan sida xeedhada iyo martisoorka dadka wadaagaya ay isugu yeedhaan. faqaala qaa'il, mid saxaabada ka mida odhanayaa wuxuu yidhi wa min qilati naxnu yowma-idin, ma yaraansho tiradayadu ay yar tahay baa laysugu kaaya habarwacanaya rasuulka allow salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. nebigu wuxuu yidhi qaala bal antum yowma-idin kasiir, maya maalinkaa waad fara badan tihiin, walaakinakum guhaa, laakiin waxaad tihiin xumbo, waxaad tihiin daadxoor ka guhaa'i sayl, sida daadka iyo biyuhu qashinka iyo xumbada ay reebaan oo kale ayaad la mid tihiin. waxaa nebigeenu yidhi walayansicanna allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum, allah wuxuu ka siibayaa yacnii laabaha cadowgiina wuxuu ka siibayaa haybaysiga iyo baqdinta ay idinka baqayaan buu alle ka siibayaa subxaanahu wa tacaala. walayaqdifanna allahu fii quluubikum alwahn, laabihiinna allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku ganayaa wahniga waxa loo yaqaano. qaaluu wama alwahnu yaa rasuula allah, wahnigu muxuu yahay? wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xubu dunyaa wa karaahiyatu lmowt, waa adduunyadoo aad jeclaataan, waa adduunyadoo aad daba orodaan, waa adduunyadu iyada darteed aad u noolaataan iyo geeridoo aad necbaysataan. adduunyada qaaradaha loo jiirayo ee loo mixantuu suurooyinkeeda waxaa ka mid a ruuxa diintiisa yacnii inuu ku beddesho waxyaabo adduunye oo aan qiimo lahayn. nebigeennu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahy baadi bilacmaali fitanan ka qidaci leyli lmudlim, acmaasha saalixada la degdega, yacnii intaanay imaan fitnooyin sida habeenka mugdigiisa iyo gobolladiisa isu daba socda. yusbixu rajulu mu'minan, ruuxu wuxuu waaberigoo mu'mina, wa yumsi kaafiran, isagoo gaalana wuu galabaysanayaa. ow yumsi mu'minan wa yusbixu kaafiran, waxaa waagu u baryayaa isagoo mu'mina oo allah rumaysan subxaanahu wa tacaala, galabtiina waxa uu gaadhayaa isagoo gaala. yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa, wuxuu iibinayaa diintiisa, wuxuuna ku iibinayaa xoogaa bandhig ah oo bandhigan adduunyadee suulaya ayuu ku iibinayaa. xadiiska imaamu muslim, tirmidi iyo keyrkood baa warinaya. ruuxa waxaa lagu imtixaamayaa xagga yacnii xuduudda alleh subxaanahu wa tacaala, inaad ilaahay wuxuu kaa xarimay ilaaliso oo daacadiisa aad la timaaddo. waa nooc alibtilaa'u waalikhtibaar fii xayaati almu'min ka mida. ibnu maajah iyo dabaraani waxay warinayaan min xadiisi thawbaan, ayaa nebigeennu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi la aclamanna aqwaaman ya'tuuna yowma alqiyaamati bixasanaati amhaali ljibaali tihaama baydaa'an, waan garanayaa oo walle waan ogaanayaa, qoomam ayaan ogaanayaa baa nebigu yidhi maalinka qiyaame imaan doona, waxay la imaan doonaan xasanaad ay soo shaqaysteen oo tiro badan oo buuraha tihaama laaleeg, yacni markaa xagga caddaanta iyo muuqaalka ayay laaleeg yihiin. fayajcaluha allaahu habaa'an manhuura, camalkii buuraha laaleekaa ee ay soo shaqaysteen ilaahay wuxuu ka yeelayaa sidii dhoobo iyo bus la firdhiyey oo kaleu ka yeelayaa. allah subxaanahu wa tacaala camalkeenna kama yeelo. nebigeenna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markay weydiiyeen, thawbaan baa wuxuu ku yidhi yacnii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi sifhum lana wajallihim lana lianlaa nakuuna minhum, rasuulka allow noo sifee oo kuwaa noo tilmaan si aanan uga mid noqon ayuu yidhi. markaasaa waxaa nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qowmun min ikhwaanikum ya'khuduuna min alleyli kamaa ta'khuduun, waa qoom walaalihiina habeenkii xataa salaatuleylka waxay ka qaadanayeen intaad ka qaadanaysaan. waa dad daacadii la imaanayey, waajibaadkiibay fuliyeen, sunnayaashiina way ku dareen dadka camalkoodii sidaa loo galay. maxaa sababay?
nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi walaakinahum idaa khalow bimaxaarimihim yacni markay wixii ilaahay ka xarimay ay la gaar noqdaan oo gooni noqdaan intahakuuha xaaraantii bay dardarayeen. markay dadka dhex joogaan iyo markay gooni yihiin isku si ilaahay uma caabudi jirin subxaanahu wa tacaala. markaad goonida joogto waidaa khalowta fii riibatin waannafsu daaciyatun ila duqyaani faاstaxyii min nadari ilaahi waqul laha ina aladii khalaqa dalaama yaraani. marka adigoo gooni jooga khalaa'iqda indhahooduna aanay kuu muuqanayn, naftu macaasi iyo cisyaan ay kuugu yeedho, waxaad tidhaahdaa naf yahay ilaahay baa ii jeeda, allihii subxaanahu wa tacaala mugdiga abuurtay baa ii jeeda. waxaynu u gudbaynaa aayaad qur-aan oo ilaahay uu ku suureeyey suwaru libtilaa'i fii xayaati almu'min. ilaahay wuxuu leeyahy alif laam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin am xasiba aladiina yacmaluuna sayi'aati an yasbiquuna saa'a maa yaxkumuun. alle wuxuu ihi dadkuma waxay u maleeyeen in lagaga tegayo an yaquuluu aamanaa inay yidhaahdeen allaanu rumaynay oo keliya, sidaa in lagu daynayo ayadoo waajibaad aan loo dirsan, ayadoo xaaraan aan laga reebin, ayadoo takaaliif aan dusha laga saarin, ayadoo fitnooyin nolosha ku xeeran aan lasoo dhex marin, wahum laa yuftanuun ayagoo aan la fitnaynin. allah wuxuu ihi walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin. xaqiiqee waxaanu imtixaannay, waxaanu jirrabnay oo kala saarnay kuwii iyaga ka horreeyey, waxaanuna ogaanay kuwa iimaankooda ka run sheegaya iyo kuwa ka been sheegaya. mar kale ilahi wuxuu leeyay am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa ya'tikum mathalu aladiina khalow min qablikum masathum alba'saa'u waaddaraa wazulziluu xataa yaquula alrasuulu waaladiina aamanuu macahu mataa nasru allah alaa ina nasra allahi qariib. alle wuxuu yihi ma waxaad u malayseen jannada ilaahay ee qiimiga badan inaad gelaysaan ayadoo aanay idiin imaan tusaalihii dadkii idinka horreeyey hortiin tegay ee ay taabatay dhibaato daran, colaad, abaar, fitnooyin, yacni marka ay taabteen, xataa yaquula alrasuulu waaladiina aamanuu macahu mataa nasruullah, ilaa rasuulkii iyo kuwii la jiray dhibaatadu heerka ay gaadhay ay yidhaahdeen goormaa naloo gargaarayaa, goormaa ilaahay noo hiilinayaa, cadowgayaga goormaa nalooga gargaarayaa, ilaa ay sidaa ka yidhaahdeen. markaasaa ilaahay min fowqi 7 samaawaat buu ka soo jawaabay alaa ina nasra allaahi qariib, ilaahay nasrigiisa iyo hiilkiisu waa dhow yahay ayaa loogu soo jawaabay. mar kale ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala isagoo noo tilmaamaya imtixaanaadka inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan lahaa linabluwahum ayuhum axsanu camala wa inaa lajaaciluuna maa calayha saciidan jursa. wuxuu alla yidhi waxaa arlada guudkeeda yaallo oo dhan aanu kuwooda camalka hagaajinaya, cibaadada iyo daacada ku dadaalaya. allah subxaanahu wa tacaala dariiqiisa iyo jidkiisa maraya, hadyiga iyo sunnada nebigana salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaalinay. mar kale ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala am xasibtum an tadkhuluu aljanna walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam alsaabiriin walaqad kuntum tamanawna almowta min qabli an talqowhu faqad ra'aytumuuhu. ma waxaad u malayseen ba alla yidhi inaad jannada gelaysaan ayadoo allah subxaanahu wa tacaala aanu kala ogaan oo khalaa'iqda u muujinin kuwooda yacni jihaadaya, alle dartii u jihaadaya iyo kuwa sabraya, kuwa yacni alle subxaanahu wa tacaala diinkiisa iyo risaaladiisa ku dhaqankeeda iyo kelmadda alle subxaanahu wa tacaala inay u kor noqdaan, kelmadda alle inay kor noqoto yacni markaa u halgamaya. waxaa ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala mar kale wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilaynaa turjacuun. shar iyo khayrba waanu idinku fitnayn, xaggaygaana laydiin celinayaaba alla yidhi subxaanahu wa tacaala. mar kale ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum waasaabiriin wanabluwa akhbaarakum. waanu idin jarrabaynaa, xaaladdu markay wanaagsan tahay dadku waa isku jiraan,
waxbixinta yacni marka la doono dadku way kala baxaan, jihaadka iyo halganku markuu yimaado ummaddu way kala baxdaa, dacwada iyo diinta ha loo adeego iyo alle subxaana wa tacaala diintiisa faafinteeda ducaada hala noqdo, ummadda way kala baxdaa. ilaahay baa subxaana wa tacaala imtixaanka iyo tamyiiska ugu talagalo alle subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yacni sidaas ma waxaad u malayseen iyadoo alle aanu khalaa'iqda u daahirin oo u muujin kuwa halgamaya ee idinka mida walam yattakhiduu min duuni illaahi walaa rasuulihi wala almu'miniina waliija wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun. oo ilaah iyo rasuulkiisa sokadooda iyo mu'miniinta sokadooda aan yeelan saaxiib hoosaad aan samaysanayn waxaad camal falaysaan alle waa ogyahay subxaanahu wa tacaala. mar kale ilaahi wuxuu yidhi walow yashaau allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin yuqtiluu fii sabiili illaahi falan yudila acmaalahum sayahdiihim wayuslixu baalahum wayudkhiluhum aljannata carafahaa lahum ayuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala. hadduu doono ilaahay diintiisa yacni wuu u gargaari lahaa asagoo bini aadam aan adeegsadeen buu u gargaari lahaa oo nasriga iyo hiilka siin lahaa. laakiin ilaahay wuxuu doonayaa bini aadamka barhkood barhka kale in lagu imtixaamo, ruuxa diinta ku dhaqmaya ee xaqa ilaalinaya iyo kaga soo horjeeda labadaasaa ilaahay iska hor keenay. adduunkana camalkay ku kala duwan yihiin, aakhirana waxay ku kala duwanaan yihiin, xagga abaalmarinta ayay ku kala duwan yihiin. alle wuxuu yidhi kuwa ilaahay jidkiisa ku dhiman ku hanuunin doonaa wuxuuna gelin doonaa janno alle u aqoonsiiyey oo sida guryahoodii adduunka ay u yaqaaniin. qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa fawaa'idu alibtilaa'i waalimtixaan. ilaahay bini aadamka inuu imtixaamo mu'miniinta oo la jirrabo maxaa faa'iido ka dhalanaysa, maxaa looga dan leeyahay, midhaha iyo natiijada ka dhalanaysaa maxay tahay. faa'iidada koowaad waxa weeye altamyiis, in la kala sooco. maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh xataa yamiiza alkhabiisa min aldayib wamaa kaana allahu liyudlicakum cala algayb walaakina allaha yajtabi min rusulihi man yashaa faaaminuu biاllahi warusulih wain tu'minuu watattaquu falakum ajrun cadiim baa la yidhi subxaana wa tacaala. allahu wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay ma ahaanin mid mu'miniinta xaaladda ay ku sugan yihiinee barwaaqada laysku dhex jiro xataa yamiisa alkhabiisa min adayib, wixii wanaagsanaa uu ka sooco midkii xumaa uu ka sooco. wamaa kaana allaahu liyudlicakum cala algeyb, ilaahay ma ahaanin mid qeybka iyo maqnaanshaha idinku daalacanaya ee xukunkiisa arladu u soo dejinayaa, kitaabkiisu uu soo dejiyey buuna idinku kala saarayaa. dhacdooyinka taariikhiga ah baa idinkala saari, ruux waliba dowrka iyo islaamka meesha uu u galay yacni markaa dhacdooyinka iyo wakhtigaa kala saari oo fasiray. ilaahayna rusushiisa wuu doortaa cidduu doono rusushiisa ka mid a. ilaahay iyo rusushiisa rumeeya, haddaad rumaysaan oo aad alle ka cabsataan ajar weyn baad leedihiin baa la yidhi subxaanahu wa tacaala. aayad kale ilahay wuxuu leeyay liyamiisa allaahu alkhabiisa min adayib, yacnii kii xumaa ee khabiiska ahaa inuu alle uu ka sooco midkii wanaagsanaa. wayajcala alkhabiisa bacdahu calaa bacdin fayarkumahu jamiican fayajcalahu fii jahannama ulaa'ika hum alkhaasiruun. shaygii khabiiska ah, dadkii nifaaqa qarsanayay munaafiqiinta ahaa, dadkii iimaanku aanu dhabta ka ahayn, dadkii adduunyada iyo dhalanteedka adduunyada ku kadsoomayey, yacnii kuwaa in barhka kale mu'miniinta ah laga sooco, kuwaa xunxunna barhkood barhka kale la dul saaro sida jawaanada iyo kiishash yacni marka kiishashka laysugu dul raseeyo naarta jahannama. kuwaasina waa kuwa khasaaray ee tacabkooda uu ba'ay. mar kale alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa min annaasi man yaquulu aamanna biاllaahi faidaa uudiya fi llaahi jacala fitnata annaasi kacadaabi illaah walain jaa'a nasrun min rabbika layaquulanna inaa kunna macakum awalaysa allaahu biaclama bima fii suduuri alcaalamiin. waxaa ilaahu yidhi dadka waxaa ka mida qaar odhanaya allaanu rumaynay, afkay iimaanka sheeganaya. laysa aliimaanu bitamanii walaa bitaxallii walaakin maa waqara fi lqalbi wasadaqathu alacmaal. xasan albasri ayaa laga soo naqliyey. iimaanku maaha wax afka laga sheegto iyo wax laysku qurxiyo toonna,
laakiin waa shay qalbiga ku sugan camalka iyo daacada ruuxu uu samaynayaana ay ka turjunto wixii ruuxa qalbigiisa ku jira. ruuxaasi marka la fitneeyo ilaahay dartii loo dhibo, fitnadaa dadku wuxuu ka yeelayaa ka cadaabillaah, sidii cadaabkii ilaahay oo kale. fitnada iyo dhibaatada adduunka ruuxa ku soo gaadhaysa iyo cadaabka ilaahay miyay siman yihiin? qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun. wallaahi ma sinna. dhibaatada adduunku waa maalmo tirsan, laakiin ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa uu ka qadiyo, dhibaatadiisu waa daa'im, waa cadaab joogto ah, waa cidhiidhi, waa ciil, waa catow. yacni waa inuu waxaan waxba u tarayn qaylo iyo dhawaaq alle subxaanahu wa tacaala uu u dhawaaqo. alle wuxuu leeyahy nasri iyo hiil xagga rabbi ka yimi hadduu yimaadana xaaladdaa yacni dadku ku jiraa waa wanaagsan yahay. layaquulanna innaa kunnaa macakum, waa idinla jirnay, garabkiinaan ahayn, gaashaan baan idin ahayn. awalaysa allaahu biaclama bima fii suduuri alcaalamiin. ilaahay miyuusan ahayn allaha u ogaanshaha badan waxa caalamka laabahooda ku jira, ayaa alla yidhi subxaanahu wa tacaala. gobol kale wuxuu ilaahay tilmaamay inay ilaahay si dhinaca ama jambiya u caabudayaan. wa min annaasi man yacbudu allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'ana bihi wain asaabathu fitnatu inqalaba calaa wajhih khasira addunya waalaakhira dalika huwa alkhusraanu almubiin. waxaa la yidhi subxaana wa tacaala dadka waxaa ka mida kuwo ilaahay caabudaya si dhinaca jambi. haddii khayr asiibo, xoolay heleen, adduunyay heleen, awlaad bay heleen. haddii ilaahay ku rumay khayr hadday helaan, idma'ana bihi waa ku xasilaya. in asaabathu fitnatun, imtixaan yari hadduu ku dhaco, inqalaba calaa wajhi weji buu u gadoomi, islaamnimadii buu ka gadoomi, gaalnimo iyo kufri buu u gadoomi. khasira addunya waalaakhira, adduun iyo aakhiraba waa khasaaray kaa imtixaankii ku dhacay. dalika huwa alkhusraanu almubiin, kaasi waa khasaaraha cad ba alla leeyahy subxaanahu wa tacaala. ilaahay nagama dhigo kuwa imtixaanka ku dhaca ee ku khasaara, allah nagama dhigo subxaanahu wa tacaala kuwa imtixaanka ku baasa ee fitnada iyo mawjaadku markay jiraan gondahoodu ay sugnaadaan, allah naga dhigo subxaanahu wa tacaala. fawaa'idda laga faa'iidayo imtixaanka ruuxu uu ka faa'iidayo axaadiista nebiga markaynu u gudubno. xadiiska abu hurayra wuxuu leeyahay nebigu maa yasaalu albalaa'u bilmu'mini waalmu'mina fii nafsihi wa waladihi wa maalih xataa yalqa allaha wamaa calayhi khadii'a. ruuxa muslimka balaayadu ka suuli mayso ruuxa mu'minka ah ee ragga ama ruuxa mu'minadee dumarka ah. nafsadiisa in la imtixaamayo, awlaaddiisa in la imtixaamayo, maalkiisa in la imtixaamayo, awlaaddaa laga qaadi, naftiisaa la imtixaami, jirooyin iyo caafimaad darro iyo shay baa lagu sallidi, xoolihii baa laga baabi'in oo waa la ibtilayn, xataa yalqa allaaha wamaa calayhi khadii'a. hadduu dhibtaa ku sabro, alla dartii ugu sabro ilaa uu ilaahay kala kulmo asagoo dembigiisii la dhaafay. oo dembigii tirmidi, xaakim, axmed iyo keyrkood baa werinaya, waana saxiix. sheekh naasirna saxiixada 2280 buu ku saxiix yeelay. nebigeennu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiis kale wuxuu ku leeyahay, yacni addoonku derajada uu gaadhaya isagoo noo tilmaamaya, ina arajula layakuunu lahu cinda allaahi almansila. nin baa ilaahay agtiisa wuxuu ku yeelanayaa boos iyo derajo aad iyo aad u qiimo badan. famaa yabluquhu bilcamal, camal uu sameeyey iyo daaco iyo cibaado uu sameeyey kumaanu gaadhin. laakiin wuxuu leeyahay nebigu, famaa yazaalu allaahu yabtaliih, alle ka suuli maayo inuu imtixaamayo xataa yacni uu ku imtixaamo bimaa yakrahu, wuxuu karaayeysanayo, xataa yuballiqahu iyaahu, ilaa derajada alle uu gaadhsiiyo. xadiis kale nebigeenu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku leeyahay, mabtala allaahu cabdan bibalaa'in wa huwa calaa dariiqatin yakrahuhaa. addoon ilaahay balaayo iyo imtixaan kuma imtixaamo isagoo weliba dhibaatadaa karaahiyeysanaya, ilaa jacala allaahu daalika albalaa yacni lahu kafaara, ilaa ilaahay subxaana wa tacaala imtixaanka ruuxa naftiisa la imtixaamay, ama balaayadaa jidhkiisa laga muujiyey, ama xoolihiisa laga muujiyey, ama awlaaddaa laga qaaday, allah subxaana wa tacaala wuxuu uga dhigaa kafaaratan wa dahuura, shay kafaara ah
iyo shay lagu daahiriyey oo dunuubtii lagaga nadiifiyey maa lam yunsil maa asaabahu min albalaa'i bikayri illaah haddaanu waxaan asla ah ilaahay kayrkii cid aan ahayn aanu u dejin aanu odhan hebel iyo hebel baa dhibta iigu wacan bini aadam xaggaasay iga timi sheikh hebel ou dhibta iga badbaadi ii gargaar shirkiga iyo gaalnimada haddaanu la imaan aw yadcuwa kayra allaahi fii kashfihi ama ilaahay subxaana wa tacaala kayrkii aanu baryin dhibaatada inuu ka faydo aanu waraysan marka dhibi ruuxa ay ku timaado waxaa la doonayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala gacmaha u horsado alaysa allaahu bikaafin cabdah wayukhawifuunaka biladii duunih ilaahay miyuusan addoonkiisa ku filnayn addoommadiisa waa ku filan yahay kuwa ilaahay ka soo hadhay bay kugu cabsi gelinayaan baa la yidhi subxaana wa tacaala nebigeennu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ina asaciida laman juniba alfitana walaman ibtuliya fasabara ruuxa liibaanay waa ruuxa fitnooyinku markay joogaan ka fogaada waa ruuxa yacni marka la imtixaamo sabra abu daa'uud iyo keyrkii baa warinaya waana xadiis saxiixa dhibaatada iyo imtixaanka ruuxa haddii la imtixaamo innagu waxaynu u naqaanaa ruuxay necab yahay waxaynu nidhahnaa ruuxan jiradiisii baa badatay maxaa laga goynayaa waxaynu nidhahnaa awlaaddii iyo xaasaskii iyo cid waliba way ka dhinteen ruuxani muxuu sameeyey laakiin ruuxa ilaahay imtixaama waa ruux uu jecel yahay oo alle addoommada uu ka doortay bal aan isweydiinno man hum ashaddu nnaasi balaa'an dadka yaa ugu imtixaan badan aan isweydiinno xadiis tirmidi ibnu maaja daarimi daxaawiya ibnu xibbaan xaakim iyo axmed ay warinayaan waxaa nebigeenu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa huma alamhala faalamhal dadka waxaa ugu daran cid la imtixaamo dhibaatada lagu imtixaamayaana ay ugu weynto oo ugu badan tahay ambiyada iyo nebiyada ilaahay subxaana wa tacaala mowduuc gaar aynu kaga hadli doonnaa suwarun min ibtilaa'i alambiyaa duruusun wa cibar noocyo ka mida imtixaankii iyo jarabaaddii ambiyada alle uu soo mariyey duruus iyo cibro qaadasho ku sugan oo ruuxa mu'minkaa la doonayo inuu ku cibro qaato ambiyada waxaa ku xiga huma alamhal faalamhal kuwa ku sii xiga xagga iimaanka kuwa ku sii xiga nebigu wuxuu ihi yubtala arajulu calaa xasabi diinihi wa fii riwaayatin calaa qadri diinih ruuxa waxaa la imtixaamaa heerka diintiisu ay joogto ayaa la imtixaamaa fa in kaana diinuhu sulban haddii diintiisu ay mid adag tahay iimaankiisu waa xooggan yahay alla ka cabsigiisu waa xooggan yahay shayaadiinta iyo shubuhaadka iyo shahwaadku ma liiliijin karaan dabayshii iyo mawjadii timaadaaba ma qaadi karto geedkiisa ayaa dhulka yacni jirridihiisu aada ugu aasan yihiin waxaa nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ruuxaas oo kale ishtadda balaa'uh imtixaankiisu waa darnaadaa wa in kaana fii diinihi riqa diintiisa haddii jileec uu ku jiro waa jiifiyaano bannaan diinta saa looma adkeeyo maxaad isugu adkaynaysaa waa iska baashaalaynaa yacni haddii ilaahay ku ran haasaawaan ku jirnaa qolada noocaasee diintoodu ay jileeca iyo muyuucadu ay ku jirto ubtuliya calaa xasabi diinihi diintiisu intay leeg tahay baa kaana la imtixaamaa famaa yabraxu albalaa'u bilcabdi balaayadu addoonka ka suuli mayso xataa yatrukahu yamshi cala alardi maa calayhi khadii'a ilaa arlada uu ka tago yacnii haddii ilaahay ku roon yahay yacni arlada dusheeda uu ku soconayo uu ka tago ayadoo wax dembiya iyo gef markaa dunuubtii oo dhan ilaahay uu ka dhaafay subxaanahu wa tacaala ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa dadka waxaa ugu daran xagga imtixaanka ruuxa la imtixaamo oo noloshiisa dhibi ay ku xeernaato ambiyada huma saalixuun dadka wa wanaagsan baa ku xiga in kaana axaduhum ambiyada midkood wuxuu ahaa layubtalaa bilfaqri faqri baa lagu imtixaamayey waa nebi ilaahay uu doortay subxaanahu wa tacaala ayaa faqri lagu imtixaamayaa adduunyadii bay suhdi ka samaynayaan oo ka saahidayaan noloshoodii baa cidhiidh gelaysa xataa maa yajidu axaduhum ila alcabaa'ata allatii yuxawiiha ilaa midkood aanu helin yacnii macawis ama busta yar oo markaa jidhkiisa uu ku duubo ilaa aanu helin maxaa yeele adduunye ma rabaan
wain kaana axaduhum midkood wuxuu ahaa nebiyada layafraxu bilbalaa'i balaayada ayuu ku farxayey kamaa yafraxu axadukum birakhaa sida midkiin uu barwaaqada ugu farxo. ruuxa maanta akowntigiisa xoogaa xoola ay ku dhacaan kibirkiisa iyo farxaddiisa iyo raynrayntiisa yacni markaa la soo koobi maayo. ruuxa maanta la yidhaahdo waddamada galbeedka aad joogtaan sharcigii baa lagu siiyey ama baasaboorkii baad heshay oo aad ku guulaysatay, farxad intee leeg buu farxayaa adduunyada ku farxay. ruuxa yacni maanta awlaadi iu dhalato la yidhahdo wiil baa kuu dhashay ama gabadh baa kuu dhashay, haddii ilaahay kuu rumeeyo ama aroos gala, yacni waxyaabaha adduunyada dhalanteedkeeda ka mida marka wuu ku farxaya. laakiin nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ambiyada ilaahay ee saa loo imtixaamay midkood wuxuu ku farxayey sidaad barwaaqada iyo nicmada aad hesheen aada ugu farxaysaan. caaisha waxay leedahay, abu saciid alkhudri wuxuu leeyahy dakhaltu cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam wa huwa yuucak, nebi maxamed baan u soo galay isagoo xumadoonaya, aad qandho aad iyo aad u darani ay hayso ayaan u soo galay. fa wadactu yaddii calayh, gacantayda ayaan dushiisa saaray. fa wajadtu waxaan helay xarahu kulaylkiisii baan waxaan ka helay, qandhada aad u daran ee nebiga haysa waxaan ka helay bayna yaday fowqa lixaafi, marada dusheeda ayaan kulaylkii aan ka dareemay. fa qultu waxaan idhi yaa rasuula allah maa ashaddahaa calayk, xumadani maxaa ka daran, qandhadan ku haysaa dhib badana. markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaala wuxuu yidhi inna kadalika yudcafu lana albalaa wa yudcafu lana alajr. annaga ambiyada haddaan nahay dhibtayadu waa ka labanlaaban tahay dhibta dadka la soo gaadhsiiyo, ajarka iyo abaalka iyaguna waa labanlaab ayuu yidhi. markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaan weydiiyey ayu nnaasi ashaddu balaa'an, qaala alambiyaa huma saalixuun ayuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh. xadiis kale nebiga waxaa la weydiiyey man ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum. sheekh naasirudiin raximah allahu tacaala albani raxmatullaahi calayhi markuu axaadiistan tacliiqinayay wuxuu yihi wafii hadihi alaxaadiis dilaalatun sariixatun calaa ana almu'mina kulamaa kaana aqwa iimaanan isdaada ibtilaa'an waimtixaana. axaadiistan waxaa ku sugan calaamo ku tusinaysa oo ku cad ruuxa mu'minkaa markastoo iimaankiisu uu kobco oo uu siyaadaba imtixaankiisa inuu badanayo, waalcaksu bilcagsi. iimaankiisu markastoo hoos uu dhacana imtixaankiisu uu yaraanayo. fa fiiha raddun calaa ducafaa'i alcuquuli waalaxlaam aladiina yadunnuuna ana almu'mina idaa usiiba bibalaa'in kaalxabsi aw aldardi aw aliqaala min alwadiifa wanaxwiha ana dalika daliilun calaa ana almu'mina gayru mardiyin cinda allahi tacaala wahuwa dan aleyh wasalam wa afdalu albashar kana ashadda annaasi xata alanbiyaa balaء فالبلاء غالبا دليل خير وليس نذير شر كما يدل على ذلك أيضا الحديث الآتي. wuxuu yidhi axaadiistani waxay radis ku tahay dadka caqligoodu iyo ay maangaabka ah ee caqligoodu uu gaaban yahay ee ruuxa marka la imtixaamo ama la xidho ama waddankii laga masaafuriyo ama shaqadii laga eriyo uu shaqo waayo ama busaarad iyo dhibi ay ku timaado, yacni u haysta ruuxaasi inuu yahay ruux ilaahay necab yahay oo alle subxaanahu wa tacaala uu u cadhooday, yacni haddii ilaahay ku rumeeyo inuu yahay. waxaan leenahay ana daalika arrinkaasi wuxuu daliil u yahay ruuxa mu'minka ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay ayuu ku tusinaya. marka sheikhu wuxuu yidhi waxaana arrinkaa ku tusinaya xadiiska soo socdo ruux walba inta abaalkiisu uu leegyahay, inta imtixaankiisu uu leegyahay baa abaalmarintiisuna ay leeg tahay. nebigu wuxuu yidhi ina cidama aljasaa'i maca cidami albalaa, abaalmarin balaayadu intay leeg tahay yacni say u weyn tahay. wa ina allaha idaa axaba qowman ibtalaahum, alle hadduu yacni markaa jeclaadana wuu imtixaamaa. faman radiya falahu ridaa, ruuxii qadarta ilaahay iyo alle maamulkiisa ku raalli noqda allah wuu ka raalli noqdaa subxaanahu wa tacaala. waman sakhida falahu sukht, ruuxii cadhoodana alle wuu cadhoodaa subxaanahu wa tacaala. dhib baa kugu dhacday, allah bari dhibta inuu kaa faydo. waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii gariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan
falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun. xadiiskani wuxuu kutusinayaa amar saa'ido imtixaanka iyo balaayadu ruuxa mu'minkaa waxay u yihiin khayr, waxayna kutusinayaan xagga ilaahay in laga jecel yahay, waase hadduu dhibta ku sabro. inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab baa la yidhi subxaanahu wa tacaala. nebigeennaana tilmaamaya wuxuu yidhi cajibtu liamri lmu'min, arrinkan ruuxa mu'minkaan la yaabay, maxaa yeelay ina amrahu kullahu khayr, arrinkiisa dhammaantii waa khayr. in asaabahu maa yuxibu, wuxuu jecel yahay hadday asiibto, xamid allah, ilaahay buu mahadinayaa subxaanahu wa tacaala, wa kaana lahu khayr, khayr bay u ahaanaysa. wain asaabahu maa yakrahu, wuxuu necdo, yacni hadduu asiibana fa sabara wuu sabrayaa, kaana lahu khayran, khayr bay u ahaanaysaa. walaysa kullu axadin amruhu kulluhu khayr, ruux arrinkiisa dhammaantii ay khayr u tahay ma jiro, ila almu'mina, ruuxa mu'minkaa mooyaane. nebiga haddii xaaladdu ku adkaato, haddii imtixaanaadku uu ku bato, waxaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi halku dheg u ahayd inuu yidhaahdo yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiis, yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiis ayuu odhan jiray. waxaa kaloo nebigeenna ka sugan salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi, haddii wax farax geliya uu helana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii tatimu binicmatihi asaalixaat, waxaan ilaahay ku mahadinayaa allaha nicmooyinka iyo wanaaggu asbaabtiisa iyo sababtiisa ay ku dhammaystirmayeen. nicmada iyo barwaaqada ilaahay u tiiray subxaana wa tacaala. kibir iyo qooq iyo duqyaan ha ka qaadin. lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid baa la leeyahy subxaana wa tacaala. haddii shay dhiba uu nebigu la kulmana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal, yacnii ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadsan. xaalad kasta oo uu noo qadaray, looxul maxfuudka noogu qadarayna waa qadar uu noo jaangooyey oo sina aanan u dhaafayn, ayuu nebigu odhan jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh. haddii deynku uu ku batana oo deynta iyo humuumta adduunyadu ay isdul fuushana, waxaa nebigu uu na baray salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu ruuxu yidhaahdo yacni allah subxaana wa tacaala uu ka baryo inuu dhibtaa iyo deyntaa iyo yacni humuumtaa isdul fuushay laga faydo. waxaa nebigeenu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu baray yacni saxaabada inuu yidhaahdo allaahuma kfinii bixalaalika can xaraamika wa aqninii bifadlika can man siwaak, allow xalaashaada igu kaafi oo xaaraantaada iga kaafi. inaan wax xaaraana oo aad iga xarimtay aan u baahdo, allow iga kaafi. xalaashana allow igu irsaaq, adigaa dheefiyey, xalaashaada yani kii ku deeqtooma iga dhig. wa aqninii bifadlika can man siwaak, deeqdaadana allow subxaana wa tacaala mid hodanoo deeqdaada ku deeqtooma iga dhig. cidda adiga kaa soo hadhayna allow mid ka deeqtooma allow iga dhig baa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh odhan jir. haddii hamiga yacni humuumta adduunyadu ay kugu badato, ibtilaaga iyo imtixaanka ruuxa mu'minkaana ay dhankaa adduunyada u badato, furaheedu wuxuu noqonayaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala yacni alle subxaana wa tacaala as'aluka allaahuma bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsak aw ansaltahu fii kitaabika yacni aw callamtahu axada min khalqika aw ista'sarta fii cilmi alghaybi cindaka an tajcala alqur'aana rabiica qalbii wa nuura sadrii wa jalaa'a xusnii wa dahaaba hamii wa qamii inuu yidhaahdo ayaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uuna baray. imtixaanaadkaas ruuxba ruuxa ilaahay subxaana wa tacaala uu uga dhow yahay ayuu imtixaankiisu uu kaga badan yahay. faqrada koowaad yacni nebigeena salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nin baa u yimi xadiiska ibnu xibbaan uu warinayo, wuxuu yidhi ina albalaaya, wuxuu yidhi nebigu u yimi ninkaasi wuxuu yidhi wallaahi yaa rasuula allah innii uxibuka, rasuulka ilaahayow waan ku jeclahay nebiga ilaahayow. faqaala lahu rasuulu llahi sal alla alيh wasalam, rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi ina albalaaya asracu ilaa man yuxibunii min asayli ilaa muntahaah, balaayadu waxay uga degdeg badan tahay ruuxa aniga i jecel sida daadka iyo biyuhu meesha ugu dambaysa ee ay ku joogsanayaan say ugu degdegaan, saasoo kale yacni ayay uga degdeg badan tahay ruuxa aniga i jecel. waa la imtixaamayaa baa nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi. imtixaanku walaalayaal waa ruuxa mu'minkaa waa wax ku xeeran,
oo noloshiisa oo dhan baa imtixaama. caafimaadku waa imtixaan, jirada iyo xanuunku waa imtixaan, awlaaddu waa imtixaan, iyo daacada alle subxaanahu wa tacaala uu kuu fududeeyey waa imtixaan. oo ilaahay wuxuu eegayaa inaad ilaahay ku mahadiso oo tiraa alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah. macaasida oo ruuxu markaa uu fududaysto waa imtixaan, yacni marka shahwaadka iyo nafta waxa ku xeeran waa imtixaan, cibaadaadka oo ka wiswaaso oo qalbigiisa lagu soo tuuro waa imtixaan. yani waxaasoo dhani yani marka waa imtixaan. nolosha mu'minka ay marka kama maaranto, yani waxaa mu'minka oo dhan ku xeerani waxa weeye alibtilaa'u walmixan fii xayaati almu'min, sidaan ciwaanka muxaadarada uga dhigay. ma jiro wuxuu kaga badbaadi karaa inuu mar walba oo la imtixaamo imtixaanka allah inuu ku sugo u weydiisto. allahuma yaa muqaliba alquluub habbit qalbii, ilaahayu yani allahuma yaa muqaliba alquluub habbit quluubana calaa diinik. ilaaha quluubta gedgediyow qalbigayaga iyo diintay iyo maaragtay laabtayada allow iimaanka ku sug. yani saa inuu yidhaahdo alle subxaana wa tacaala. karti kumaad mutaysan, fiicnaan kumaad mutaysan, aftahamo kumaad mutaysan, laakiin ilaahay baa kuu hibeeyey subxaana wa tacaala. waxaan leenahay walaalayaal, ducafaa'ul iimaanku marka la imtixaamo imtixaanka way sheegsheegaan, in badan bay sheegsheegaan. caawa haddaad xanuunsato berri waxaad leedahay xaloo dhan ma seexan, calooshaa i xanuuntay, intee baad caafimaad qabtay, maxaad u timaaddo wuu sheegsheegay. laakiin nicmooyinka rabbi ma sheegta. wa amaa binicmati rabbika faxadis, nicmooyinka rabbigaa ka waran. wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha wa aataakum min kulli maa sa'altumuuh. yaa rabbiyow maxaad noo nicmaysay? caafimaad buuna siiyey, caqli dhammaystiran buuna siiyey, cilmi buu noogu deeqay, diinta inaan baranno alle subxaana wa tacaala kuwa khayrka dhegaystuu naga dhigay. yacnii alle subxaana wa tacaala noloshii buu noo fududeeyey. neefta iyo ogsijiinka alle uu kaa soo saaray. dadka dhibaatada ku qaba markaad aragtaad ogaan doontaa nicmada qiimaha ay leedahay. lixaadka ilaahay ku siiyey waxaad ogaan doontaa kuwa ilaahay ka qadiyey markaad aragto. caafimaadku qiimaha uu leeyahay wuxuu ruuxu dareemaa marka ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadka uu ka qaado. allah waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala iimaanka inuu nagu sugo. darsiga qaybtiisa dambe waxaan u dibdhiganayaa qaybta dambe oo aan ugu talagalay duruusun wa cibar min ibtilaa'i alambiyaa, duruus iyo cibrooyin ku saabsan imtixaankii ambiyada la soo mariyey, oo aan isleeyahay qofka xoogaa qalbigiisa iimaan ku jiro wuu ku waana qaadanayaa. ina fii dalika la cibratan, arrinkaas oo cibro ku jirto, yacni liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wahuwa shahiid. allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakiiha anta khayru man sakaaha anta waliyuha wamawlaaha. allahuma ina nas'aluka iimaanan kaamila wayaqiinan saadiqa waqalban khaashican walisaanan daakiran warisqan dayiban wacamalan mutaqabala. rabbana aatina fi اddunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والقنى والعفاف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وجزاكم الله خيرا في حسن استماعكم.